abwaan Sangub waa uu nool yahay ma uusan dhimanin. inta jecel xumaanta waxaan leeyahay dadka qaar waa laga xishoodaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. isku soo noqod wanaagsan iyo fiideo cusub. waa saaxiibkiin tiiticadda youtube-ka aad daawanaysaanna waa tiiticadda channel. aad baan ugu faraxsanaa mar kale inaan kusoo laabto wejigiina si aan idinkugu soo duubo fiideo cusub. magacaygu waa maxamed xasan, waxaan ahay youtuber, waxaan ahay guddoomiyaha anshaxa iyo fanka iyo suugaanta soomaaliyeed. another one tiiticadde. caawa waxaan rabaa in aan ka hadlo waxaa baraha bulshada lagu baahiyey in uu geeriyooday abwaan Sangub oo ah abwaan soomaaliyeed, oo ah abwaan qiimo iyo qaayo ummadda soomaaliyeed ugu fadhiya. soomaalida inaysan xishooneynin oo ay ka xishooneynin dadkoodii lejantiga ah ama dadkoodii sumcadda iyo sharafka ku leh bulshada iyo caalamka, in ay rabaan in ay bariis yar ay helayaan ay ku ijaafaystaan ama ay ku xumeeyaan. marka asxaabteeda anshax wanaag team, mar walba waxaan u taaganahay aniga qof kasta oo Soomaaliya oo horumar uu rabo in uu ku tilaabsado in aan horumarkiisa ka shaqeeyo. qof kasta oo Soomaaliya horay u marayna in aan sii labo horumarkiisa si aan u gaarsiiyo hankiisa iyo himiladiisii meeshii uu rabay in uu higsado ayaan rabaa inaan ka shaqeeyo. dadka Soomaaliyeedna waxaan rabaa in aan ku baraarujiyo oo aan rabaa in aan ka jaro oo aan ka gooyo xumaanta ay mar walba ka baafinayaan dadkoodii wanaagsan, dadkoodii xurmada ka rabay, dadkoodii culimada ah, dadkoodii caamka ah, dadkoodii wanaagsan, dadkoodii lejannada ah, dadkoodii sportiska ah, dadkoodii madaxda ah, dadkoodii heesaayaasha, dadkoodii laxamiistayaasha, dadkoodii abwaan. isku soo duub qof kasta oo Soomaaliya oo qiimo leh in aan sumcadiisa ilaaliyo. okay, waxaa baraha bulshada lagu baahiyey youtuberada iyo baraha bulshada in uu geeriyooday abwaan Sangub. kullu nafsin daa'iqatul mawt, maalin ayay naf walbo dhadhaminaysaa geerida. qof aantiisa dhammaaninne ma geeriyoonayo, mana ka hormarinaysid. idaa jaa ajaluhaa laa yastaaqiruuna saacatan walaa yastakhdimuun. mana ka hormarin kartid, mana ka dibdhigi kartid saacadda qofka ilaahay ugu talagalay inuu nafta ka qaado. adiga oo bariis yar ku raadinaya in views yar lagu siiyo oo dadka ay ku daawadaan, in aad nin maqaamka iyo magaca heerkaas la eg oo Soomaaliyeed oo la dhihi karo waa abwaan qaran, waa abwaan heer qaaradeed, la dhihi karo in aad social mediaha soo dhigto in uu geeriyooday. waana ugu yaraan markii 10aad oo abwaanka oo nool nafta laga qaado. taasna ma ahan wax soomaalinimadu ku wanaagsan iyo diinta islaamka. waana munaafaqnimo heerkeeda la eg in aad qof nool aad dhahdid wuu dhintay. waa dembi weyn oo la galo dunuubyada ilaahay xaggiisa laga galay ka mid tahay. qof ilaahay ajashiisa dhammeyn in aad adiga dhahdo wuu geeriyooday, aad ehelkiisa ka naxiso oo aad qaraabadiisa ka naxiso, aad Soomaalida inta uu ku weyn yahayna aad ka naxiso, aad ka goyso, murugo na geliso. marka dadka oo dhan waa wada danley. youtube-ka iyo meelo kale oo bulshada ay ku hadashoba dadku way ay ka bariiseeyaan. bariisna waa laga soo wada raadiyey. qof walbana dantiisa iyo himiladiisa ayuu ku joogaa. balse inta qof legend ah aad geeridiisii aanan dhicin
keeni lahayd baraha bulshada si aad ugu hesho xoogaa yar oo shilimaad aad ku noolaato waxaa kuu dhaanta adiga oo lejanka qiimeynaya qadarinayana aad wax wanaagsan ugu been abuurato xitaa aad dhahdo maanta abwaan sangub oo ka qayb galay tiyaatarkii oo dib loo soo nooleynayo waxaas oo kale xitaa loo qaateen waayba in qofka aad magac usii raadisid ood kasii dhigtid ood aad propagandadaad kusii buunbuunisid laakiin ma ahan in propagandadaada aad qof lejan oo heer qarana aad dhahdid waa uu geeriyooday qofkiiyo nool waxaasna ma ahan wax sharafka soomaaliyeed ku wanaagsan dadka adduunka hore u maray dadkoodii wanaagsan ama dadkoodii caanka ah way u ooyaan si ay ula kulmaan si ay sawir ula galaan si ay saxiix ugu qaataan balse adigu kaagay magaca leh meeshii aad u ooyn lahayd oo aad buunbuunin lahayd oo aad saxiixiisi raadin lahayd oo aad sawir aan kula galo ku baryi lahayd ayaa waxaad ka shaqaynaysaa inaad ciibaalkiisii soo bandhigto waxaad ka shaqaynaysaa in asigiyo nool waa geeriyooda dhahdid taasna ma ahan wax ku wanaagsan anigana taas waa horaan u sheegay dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin training dheer in la siiyo ayay u baahan yihiin oo tababar loo furo iyo seminaaro heer qarana seminaaradaasi oo dadka lagu barayo waxyaalaha wanaagsan sababtoo ah soomaalidu waxaa madax maray xumaan iyo qabiil ayaa madax maray marka sidaas la ajliga dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in la tiiraanyo bixiyo oo seminaaro loo fidiyo aqoontoodii la dhiso sababtoo ah dadka soomaaliyeed 75% waa nothing ma qoraan ma aqriyaan ma fahamtay marka dadka jaahilnimada heerkaasi ku weynaatay ma laga yaabo marka inay wanaagga doonaan marka dadka waxaa xishood la-aanta badaya qofkoodii heerka qaran ahaa in ay geeridiisii sheegaan asoo nool waxa ku qasbaya waa aqoon dari jahlinimo iyo xoogaa yar oo dhuuniya oo uu doonayo qofka soomaaliyeed wax kastoo u samayn karaa in yaroo khidmada waa lagu siinaa markii la dhaho naf buu u jaraa waa ogtihiin in magaalada muqdisho ama gobolada dalka xoogaa yaroo khidmad aad bixisid in qof dhan ama 2 qofood dhan lagu soo dilayo marka dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa ama dhalinyarada baraha bulshada isticmaasha oo ah kuwa youtuberada si aad channelkaaga ugu dhigto mid weyn ma ahan in aad dadkaagii magaca leh dadkaagii sumcadda leh dadkaagii qiimaha leh in aad bulshada dhexdeeda ugu been abuurato kuma hormarayo channelkaaga xoogaa yar khidmada aad siisato miyaa maanta nin weyn oo qaaya leh yaa oo heesihiisii qiimaha iyo qaayaha lahaa ee guwaawada lahaa ee kalgacaylka lahaa ee qarannimada lahaa in aad siisato yaa xoogaa yaroo khidmada aad ka hesha youtube-ka miyaa maanta nafsadiisii yaa u siisatay in uu asigoo nool aad dishid absolutely waxaas wax fiican ma aha bliis ka waantooga dadka soomaaliyeed ee youtube-yada leh ee xumaanta faafiya ee bariiska yarkaa ku raadinaya dadkoodii magaca leh in ay sumcadda ugu ciyaaraan ka waantooga ayaa idin leeyahay arsaaqda ilaahay baa kuu qoray youtube ka heshaa iyo waddada ka heshaaba arsaaqdaada cidna kaama hor istaagayso ilaahay inta uu kuu qoray waad helaysaa adoonan sangub ka been abuuranin adoo farmaajo ka been abuuranin adoo xasan cali kheyre ka been abuuranin arsaaqdaada waa helaysaa marka bliis dadka soomaaliyeed xumaanta ha laga waantoobo samahana ha loo kaco samaanta wax ka wanaagsan ma lahan sababtoo ah xumaan wax aad ku faa'iidaysid mala aakhiran waad ku naar tegaysaa balse wanaag kastoo aad samayso xasanaad
iyo sumcad adduunyadan ugu noolaataad hele aakhirana aad ugu janno tagto marka ka waantow haddaad tahay youtuber in aad qof magac leh oo sumcad leh oo heer qaran ah in aad ijaafaysato asxaabteeda fideogan caawo aan ugu hadlayay ka been abuurashada laga been abuuray abwaan sangub intaa ayuu igaga egyahay please haddii aad daawato fideogan aad ka hesho like saar haddii aad ka helinna unlike saar haddii aad ku cusub tahay youtube channelkeygana please subscribe saar channelkeyga hana ka tegin inaad gambaleelka klik siiso si aad mar walbo u daawato muuqaal kastoo cusub oo aan soo dhigo youtube channelkeyga waxaa idin leeyahay inta samaha jecel wanaaga ka shaqeeya soomaalina xumaan way ka soo daashay samaanta hala raadiyo samaantana hala raaco waa gudoomiyaha anshaxa iyo fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed oo idin leh